wargeyska The Daily Telegraph ayaa soo saaray warbixin ay dowladda Lubnaan been abuur ku tilmaantay warbixintaas oo sheegaysa in ururka Xisbullah ay ku kaydsadaan hub casri ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut taasoo khatar amni keeni karta. wargeyska caanka ee The Daily Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in Xisbullah oo ay Iiraan taageerto ay ku kaydiyaan hub casri ah garoonka caalamiga ee magaalada Beirut ee dalka Lubnaan. warbixintan waxay ka caraysiisay mas'uuliyiinta dalka Lubnaan iyadoo wasiirka gaadiidka ee dalkaas uu si adag u beeniyay warbixinta wargeyska Telegraph. dowladda Lubnaan ayaa saxafiyiinta iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta dalkeeda ku sugan ku marti qaaday inay soo booqdaan madaarka magaalada Beirut si ay indhahooda ugu soo arkaan wax kasta oo ka socda garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut. falanqeeyaasha amniga ee gobolka ayaa sheegaya in xogta tilmaamaysa in Xisbullah ay hub ku kaydsato kaabayaasha rayidka ay keeni karto marmarsiyo ay Israa'iil ku duqayso garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut haddii uu dhaco dagaal aad u ballaaran oo dhex mara Israa'iil iyo Xisbullah. Israa'iil ayaa marar badan duqeymo ka geysatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut xilliyadii dagaaladu ay socdeen, waxaana ugu dambeysay sanadkii 2006 xilligaasoo dagaalo culus ay kula jireen Xisbullah, taasoo qayb ka ahayd istiraatiijiyad ay Israa'iil doonaysay inay ku go'doomiso Lubnaan. warbixinta uu qoray wargeyska The Daily Telegraph ayaa lagu soo bandhigay hadal ay ka soo xigteen militariga Israa'iil oo dhahayay Xisbullah xeeladaheeda waxaa ka mid ah in hubka ay ku howlgasho ay ku qariso xaafadaha rayidka, waxayna hub khatar ah ku kaydsataa meelo ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut, taasoo ku khasbaysa ciidamada Israa'iil inay beegsadaan goobahan rayidka waqtiyada dagaalada. arrintan ayaa ku soo beegantay waqti adag oo ay Lubnaan ku jirto iyo Israa'iil iyo Xisbullah oo ku dhowaanaya inuu dhex maro dagaal baaxad leh, iyadoo 9 bilood oo u dambeeyay ay dagaalo goosgoosa ku dhex marayeen xuduudda. Israa'iil ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay sheegtay in haddii diblomaasiyaddu ay xallin weydo iska horimaadyada Xisbullah ee xuduudaha ka gudba ay bilaabi doonto howlgal militari oo ballaaran oo ay ka samayn doonto Lubnaan. wasiirka howlaha guud ee gaadiidka dalka Lubnaan Cali Xaami oo beeninaya warbixinta wargeyska Telegraph ayaa garoonka diyaaradaha ee Beirut ku casuumay danjirayaal ka socday EU, Germany, Egypt, India, Pakistan, China, South Korea, Cuba, Romania, Brazil, Kazakhstan, Jordan, Spain, Algeria iyo Nigeria si ay u soo xaqiijiyaan warbixinta beenta ah ee laga gudbiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut ee uu gudbiyey wargeyska Daily Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska. wasiirka howlaha guud ee gaadiidka ee Lubnaan Cali Xaami ayaa waxa uu sheegay in Lubnaan ay dacwad ka gudbin doonto wargeyska The Daily Telegraph maqaalka ku saabsan in hubka iyo gantaalaha Iiraan lagu kaydiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut, wuxuuna sheegay inay dacwadaas u gudbin doonaan ururka caalamiga ee gaadiidka cirka maadaama warbixinta wargeyskaasi uu khatar geliyey duulimaadyada rayidka ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut.